sidee ku dhici kartaa in qof bani aadam ah uu qooley nool abuuro kaaga daranay waliba waxaa jira isaga oo hal qooley ka dhigaya 2 kadib 3 4 iyo ka badan waa waxa ay dad badan la yaabeen oo ay sirta arintan ku jirtaana ay aad ula wareereen waa in sarcaad iyo farsamo dadka aragtidooda lagu khiyaanayo kaliya si loo fahmo waxa ay u baahan tahay in sharaxaad sugan laga bixiyo u fiirso markasta oo uu CEO sameynayo in sarcaadka ku saabsan shimbiraha wuxuu xiran yahay ama uu ku labisan yahay jaakad sirta in sarcaadkiisuna waxa ay ku taagan tahay jaakadaas uu xiran yahay sidee bal aan ku sharaxo CEO waxa uu dhowr xabo oo qooley ah ku wataa jaakada gudaheeda halkaas ay ugu qarsan yihiin holaca uu shidayo waa mid uu kabriid ka shidayo laakiin tiishka uu holaca ku qabanayo waxa uu leeyahay maado sameynaysa holac macmal ah oo aan wax gubaynin sida kuwa filimada lagu jilo oo kale sidaas darteed holacaasi waxa uu ka caawinayaa in aan si fudud lagu dareemin marka uu qooleyda jaakada ka soo saarayo tan kale qooleyda uu jaakada ka soo saarayo waxa ay ugu diyaarsan tahay maro kadibna dun siriq leh ayaa kula xiran oo si fudud uu ugu soo jiidaya sidan oo kale si degan u fiiri marka uu dunta ku soo qabanayo faryareediisa kadibna intuu gacanta ku wareejiyo uu qooleyda si dhaqso badan uu uga soo saarayo jaakada gacanteeda intaas kadib waxaynu eegaynaa in sarcaad kale oo isla qooleyda ku saabsan laakiin waa ayadoo dhowr xabo lagu jilayo waan filayaa inaad ka heshay muuqaalkan oo aad mar hore like saartay haddii aadan weli saarinna aad hadda noo saari doontid adigoo mahadsan